dowladda Masar ayaa sheegtay in Soomaaliya u soo dirayso saraakiil khubaro ah oo dowladda federaalka Soomaaliya ka gacan siiya adkeynta amniga dalka iyo sidoo kale la dagaalanka argagixisada kadib wada hadal dhex maray labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo dalka Masar. madaxweynaha dalka Masar Abdul Fattah al-Sisi ayaa wuxuu sheegay in dowladdiisa ay hore fasax uga heshay inay ka qayb noqoto howlgalka midowga Afrika ee USOM iyo sidoo kale in ciidamadiisa ay dejin doonaan dalka Soomaaliya. iskaashigan waxaa sidoo kale kamid ah tababarada iyo sidoo kale dhisida awoodda ciidan anagoo Soomaaliya u dirayna saraakiil khubaro amni ah oo ka gacan siiya ciidamada xoogga dalka Soomaaliya la dagaalanka ka dhanka dagaalamayaasha ururka al-shabaab ayuu yiri madaxweynaha dalka Masar Abdul Fattah al-Sisi. sidoo kale xukuumadda Qaahira ayaa dhaqaatiir takhasusyo kala duwan leh iyo daawooyin u soo diraysa Soomaaliya si loo sii wado dadaalada cusub ee lagu xoojinayo yoolkooda wadajirka ah. Masar waxa ay dhawaan Soomaaliya u soo diraysa dhaqaatiir leh takhasusyo kala duwan iyo sidoo kale agab caafimaad ayuu yiri madaxweynaha dalkaasi Masar Abdul Fattah al-Sisi. Masar waxa ay kamid tahay dalalka ku deeqay ciidamada midowga Afrika ee USOM balse ciidamadeedu wali ma aysan soo gaarin dalka Soomaaliya. xukuumadda Qaahira ayaana shaacisay in ay soo deji doonto ciidamadaasi si ay qayb uga noqdaan howlgallada lagu adkeynayo amniga dalka. hadalkan uu jeediyay madaxweynaha dalka Masar Abdul Fattah al-Sisi ayaa ku soo hadaya iyadoo dhawaan uu dalkaasi booqday madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud isla markaana labada dawlad ay soo kala saxiixdeen heshiisyo ku saleysan dhinaca amniga, dhaqaalaha iyo sidoo kale iskaashiga dhinaca siyaasadda iyo diblomaasiyadda. Masar ayaana kamid ah dawladaha ugu horeeyay ee qaaradda Afrika ee si bareera u sheegay inay garab taagan yihiin dawladda Soomaaliya iyagoona ka soo horjeestay aqoonsigii Yahuuddu ay siisay maamulka Somaliland.